maanta ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qardho meedka marxuum boqor Cabdullaahi boqor Muuse oo laga soo duuliyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ammaanka guud ee magaalada Qardho ayaa aad loo adkeeyay waxaana wadooyinka magaalada lagu dhex arkayay baabuur ay la socdaan ciidamo fara badan kuwaasi oo sugaya ammaanka diyaaradda sida meedka boqor Cabdullaahi boqor Muuse ayaa waxa ku weheliyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya wasiirka maaliyadda Soomaaliya Mudane Maxamuud Xasan Suleymaan aaska boqorka ayaa ka dhacay qabuuro magaalada Kaydhaba dhanka waqooyi waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Puntland, Jubaland, dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo madax ka socotay dawladda dhexe ee Soomaaliya. Goobta aas ka dhacay ayaa waxa ku sugnaa boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimid inta badan dhulka ay Soomaalidu degto. boqor Cabdullaahi boqor Muuse ayaa 24kii bishii June aynu ka soo gudubnay ku geeriyooday magaalada Helsinki ee dalka Finland. لا إله إلا الله محمد رسول الله جنازة إلى الأوبان وحاول من الجنازة وحراعي وجنازة يلا عم بدين الجنازة اللي كنت كنا عادنا الجنازة اللي نقول سعدينا هنا شيخ أحمد زاهر شيخنا هنا
Bukan ada lagi. waxaan anigu ku hadlayaa magaca guddiga qabanqaabada aaska waxaan u soo jeedinaynaa hambalyo iyo magaadin aan ku hambalyaynayno magaadin iyo hambalyo iyo mahadnaq aan uga mahad celinayno ka soo qaybgalka ay ka soo qaybgaleen aaska boqorka boqor cabdulaahi boqor muuse oo ay ku soo sharfeen waxaanu filaynaa in badan oo iyaga ka mid yihiin inay deegaamo fogfog ka yimaadeen oo safar dheer soo galeen dhammaanteen waa wada tegaynaa waanu dhimanaynaa gurigeedna kuntaahi waa kaas hadda aynu boqor cabdulaahi aynu ku aasnay qof waliba dhulka wuxuu ku leeyahay 2 mitir qof baad ahaanaya alla maaha cid baad ahaanaysaa ma jiro ilaahay u naxariisto nagana inuu ku daba naxariisto waxaan halkaan mahadnaq u jeedinayaa kaalinta doorka ay ku yeesheen aaska boqorka dowladda federaalka oo ugu horeeyay madaxweynaha mudane professor sheekh xasan sheekh maxamuud ra'iisul baarlamaanka mudane professor jawaari ra'iisul wasaaraha mudane dr saacid madaxda dowladda puntland madaxweyne cabdiraxmaan faroole ku-xigeenkiisa cabdisamed cali shire iyo dhammaan golayaasha dowladda federaalka iyo puntland iyo madaxda dowladda ismaamulka soomaalida madaxweyne cabdi maxamed cumar oo dhammaan tacsi tiiraanyo siday uga xun yihiin halkana soo gaarsiiyey waxaan kaloo u mahad celinayaa salaadiinta soomaaliyeed markaas kolkaa inaan gallo oo ciidaan laga seexiyo oo halkaan lagagu weydiiyo kontaroolkaas fasaxa bilowgiisa ah laakiin daarta dambe ka mid ah waa laga maarmaan waa waxayna sugayo wey arrintaa waxaa loo baahan yahay iyo tabaashaysto boqorka boqor cabdulaahi waxaa ka soo raacay nabigu sheegay sala allahu alay wasalam ahalkii maalkii camalkiisii unbaa ku haya maalkii iyo ahalkii labada wada qabanaya ummadda soomaaliyeed ka soo qayb gashay meel kastoo ay ka timi iyagana waxaan leeyahay waajibkiina waa gudateene ilaahay jazaayadeeda ahayd siiyo idinkana baan leeyahay bulshada nooc kasta oo ay tahay anagu waxaanu ka nimi anagoo wafdi ah somaliland wafdigeedaas wafdi ballaaran buu ahaa laakiin duruufaha qaarkood oo jira waxaanu ku wada soconay 4 xubnood oo ka tirsan salaadiinta iyo boqorrada
ilaa Ceergaabo ilaa iyo Hargeysa Burco iyo Oodweyne ilaa Laasqor isla markaas hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya oo dhan madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha waxaan tacsiin u diraynaa qoyskii uu ka dhintay Allah u naxariistee boqor Cabdullaahi boqor Muuse eheladiisii dadkii uu madaxda u ahaa dadka Soomaaliyeed oo dhan khaas ahaan dadka reer Puntland سلام بعد جد وحن شيء يا الله هاي بقول عبد الله وموسى الله الحريص بالله الله السيو دعاء أنت عينينا الله هو أفضل كتاب في سنة ملك الله كسي أنت مركز نقول أروح هاي بقول عبد الله هدي على مساري وأنا سوق عيوش بالله أسوق وتر تجمل عابوا وقت بالله أسوق وتر على مسار كيسنا كسوق عيبلي waxaan odhan lahaa boqorka allah u naxariisto ilaahayna aynuu barino maanta inaan ilaahay u barino inaga mudan yahay eheladiisiina waxaan leenahay samiriya baan allah ka siiyo waxaan aad ugu mahad celinayaa dadka faraha badan ee aas ka soo qayb galay waxaan anigu tacsi idinka wadaa dadka reer Jubbaland oo aanu kala dhinnayn meelaha qaarkood odayaashoo dhan baa soo hadlayey siyaasiyiintii dad badan baanu ku ahayn keliya waxaan u dhiibdanaan aaska idinkala qayb gallo oo aan janaasadaas xaadiro oo aan u tacsiino eheladii isagana aan u ducayno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun boqor Cabdullaahi boqor Muuse bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ku nooshahay uu ka dhintay wuxuu ahaa boqor dhaqameed wuxuu ahaa nin siyaasi ah wuxuu ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed haddaan nahay bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya joogtay shacbiga Itoobiya oo dhanba dhammaantay waxaan jecel lahay inaan tacsiin gaarsiino naftanadana oo ka bilaabayno bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay gaar ahaan shacabka reer Puntland gaar ahaan reer Qardho gaar ahaan qoyskii uu boqorka ka dhashay carruurtii walaaladii iyo ehelkii inaan tacsiin gaarsiinaan rabnaa sabir iyo iimaan Allah siiyo boqor Cabdullaahi boqor Muuse maanta bishaan Juulaay toddobadeeda lagu aasay magaalada Qardho ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu naxariisto ehelkiisana ka taxsamarsiiyo waxaan marka u horeeya tacsi u dirayaa tacsi gaara qoyskii uu ka tegey xaaskiisii caashe Ali Aadan iyo carruurtiisii Deeqo iyo Axmed iyo Xanab iyo Sharmaarke boqor Cabdullaahi boqor Muuse ilaahay ka samarsiiyo aabihi ilaahay ka samarsiiyo intaas ka bacdi waxaan u tacsiyeynayaa qoyska reer boqor Cismaan wixii ka jooga dhulkaan ay u horeeyaan labadii awoowe Bulxan boqor iyo Cumar boqor waan nolol ku ogaa labadaba iyo inta kale oo reer boqor Cismaana waxaan tacsi kale u dirayaa dadka reer Qardho magaaladan gaar ahaan boqor Cabdullaahi kula dhashay magaalo ahaanna magaaladiisi ahayd iyo dadka reer Puntland dhammaantoodba waxaan tacsi kale u dirayaa isimada Soomaaliyeed Soomaaliga inta ku hadasha dhammaantood gaar ahaan kuwa Puntland ayaan tacsi u dirayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan aad idinka tacsiyadaynayaa dadka Soomaaliyeed ehelkana ah islaamkana ah geeridii ku timi boqor Cabdullaahi oo maanta lagu aasay halakan baan idinka tacsiyadaynayaa innagoo ah dad islaam ah uuna inaka wada dhintay isagana ilaah waxaan uga baryayaa naxariistii janno inuu siiyo xaqii rabbi uu ku lahaa uu ka masaabaxo kii aamnigu uu ku lahaana uu rabbi ka bixiyo saas ahaanna intii uu ka dhintay warasadii waalidkii iyo marwooyinkiiba uu ka dhintayna samir iyo iimaan gooniya oo mar labaad Allah ka siiyo